ninbaa isuuxiyey markii aan soo kacayna waxaan arkay ninkii oo raba inuu afkayga geliyo xubinkiisata. Soo dhawaad daawadayaal, waa anigoo ah raaxo doon caawa, waxaan idiin wadaa qiso aad la yaabi doonto. Waa gabar uu nin ku sameeyey arrin la yaab leh. Ugu horeen muuqaalka sheer garee, page-kana follow dheh si aad ula socoto muuqaladayda. Mahadsanid. Waxay gabadhu ku bilowday qisadeeda sisatan. Waxaan ahaa gabar yar oo imaka uun qaangaadhay, waxaana laygu yaqaanay akhlaaq wanaag iyo inaan ahay gabar asturan oo aan bannaanka wareegin. Maalin anigoo jaamacada ka soo baxay ayuu wiil iga hor imaaday, si kas ahna buugii aan sitay iiga tuuray. Markii aan isdhahay qaadana, isaga ayaaba iiga hormaray oo iiso qaaday, wuxuuna iga dhadhiciyey inaan qurux badanay oo uu iga helay. Kadibna numbarka ayuu iga qortay, mar walbana wuu isoo wici jiray, waqti badana wuu isiin jiray. Waxaanan ka arkay daryeel, naxariis iyo jacayl faro badan, kaasoo gabar kaste qalbigeeda soo jeedin karaa. Aniguna ninkii waan jeclaaday, waxaanan gaaray heer aan markaan codkiisa maqli waayo hanuun dareemo mudo. Ilaa 3 bilood ah markaan taleefoonka ka wada sheekaysanaynay ayuu maalin iga codsaday inaan kulano, balse waan ka diiday. Laakiin markii dambe wuu igu qanciyey inaan kulano, waana la qaatay. Wuxuu igu ballamiyey hoteel uu noo soo ijaaray. Anigu wax shaki ah kama qabin, xiise xad dhaaf ahna waan u qabay, balse dareen kale kamaan qabin oo isma lahayn dhib ayuu kuu geysanaa. Haddaba markaan hoteelkii gaaray ayuu isoo dhaweeyey, qolkii ayaanu galnay. Waa qol si fiican loo sharaxay, waxa ubax yaalo iyo waxa caraf ka soo baxaysa maleysan maysid. Markii aanu fadhiisanay ayuu i dhahay, macaan sharaab ayaan inoo dalbayaa. Sug, wuuna iga baxay. Wuxuu igu soo labtay asigoo sharaabkii wada wanan cabay, anigoo aan ka shakiyin. Markii aan wax yar ka cabay sharaabkii ayaan isbedelay, waxaanan arkay inaan miir daboolmayo. Hal mar ayay indhuhu i madoobaadeen. Wuxuu sameynayo iyo wax kale ma kala sheegi karo, waayo miirkaygiba ma joogin. Mudo markii aan suuxsanaa ayaan hal mar indhaha kala qaaday, balse waxaan arkay wax aanan filanayn. weligayna aanan ku fikirin waa lagugu samayn doonaa. Markii aan indhaha kala qaaday waxaan arkay ninkii oo aan waxba wadan oo sidii lagu dhalay ah, oo korkay